Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka Soomaali Kartoon. Waa aniga walaashin Ilhaan Nuur. Waxaan maanta idin la wadaagi doonaa sheeko kale oo xiiso leh, balse inta aynu guda galin sheekada waxaan idinka codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto, kambalelka furto si aad ula socoto wax walba aan soo dhigno. Mahadsanid. Jilaagii caanka ahaa ee asal ahaan u dhashay waddanka Australia ayaa sawirkiisa ku baahiyay baraha bulshada ay ku kulanto isaga oo hoos jiifo taalo maar ka samaysan oo muuqaalkiisa loo ekaysiiyay, taasi oo kaabiga ku haysa wadada dhinaceeda. Waxa uu dusha ugu qoray alla muxuu waqtiga isbedelay. Ujeedada qoraalka ayaa lagu qeexay inaysan ahayn oo kaliya in jilaaga uu duqoobay, balse ay tahay arrin murugo weyn xambaarsan, maadaama uu tibaaxay xilligii uu maayarka guud ka ahaa gobolka California ee waddanka Mareykanka in lagu maamusay furitaanka hoteelka uu maanta hortiisa seexday, laguna sharfay in taaladiisa laga taago afaafka hore ee hoteelka, iyada oo maamulkii waqtigaas joogay ay ballan qaadeen in jilaaga qol gaar ah lagu qorayo magaciisana uu isticmaali doono inta ka dhiman noloshiisa mar walba ee uu hoteelka yimaado. Hadda markii uu jilaagi ka fadhiistay gebi ahaanba shaqada maayarnimada gobolka California, ayuu maalin aaday hoteelkii taalada lagu dhisay si uu ugu nasto qolkii kaydka ahaa ee magaciisa lagu hardhay. Nasiib darro, qoladii maamulka haysay ayaa ka diiday codsiga uu u soo jeediyay, kuna cudur daartay in dhammaan qolalka ay iminka buuxaan oo mid bannaan aysan jirin. Waana sababta uu u seexday taalada horteeda, isaga oo warbaahinta u oggolaaday in sawiro laga qaado. Oo aad ula yaaban ficilka foosha xun ee lagula kacay laguna beeniyay rabitaankiisa, ayaa sheegay in dadka ay aad u jeclaayeen muddadii uu xilka hayay, ayna ku qiimeynayeen magaca iyo darajada uu lahaa, laakiin maanta aanu heerkaasi joogin. Mar haddii uu shaqadii ka tagay, waa run in waqtiga uu yahay mid wareego, maalna uu dhammaado, awooduna ay daciifto, halkaas ay ku harto sumcaddii aad bulshada dhexdeeda ku lahayd. Marka laga reebo camal wanaagsan oo aad qabatay, gacan baahan oo aad caawisay markii ay kaalmadaada mudnayd. Guud ahaan intaas ayaan maanta kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga. Mac salaama.